Qoysaskan gaaraya ilaa 2,000 oo ah dad danyar ah soona saameysay abaarta iyo colaadaha ka jira Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ku sugan xerooyinka ku yaala magaalada Baydhabo ayaa la gaarsiiyay deeq raashin ah oo isugu jira bariis, saliid iyo timir. Deeqdan ayaa qoysaskan ugu deeqay Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Dowladda Federaalka Soomaaliya, Saalax Shariif Siidkaya. qaar ka mid ah qoysaskii ka faa'iideysay deeqdan ayaa ka mahadceliyay. oo baad alxamdulillah aradun roogna dhibaatadii yaal naafagi adahanin dirti oo untu umud ilaahay niil kulmiye baad waa walka nooladi ilaahay aan ka mahadnagaan adikiin ka mahadiyana darajada tootan kuwiin oo khayr leh ilaahay kiin sahel du'ayn umad badan oo inta kay kun ee inta fadhiya kiin du'ayti أنت كبعدني إلهي جرجار كفضانا نين جرجار تهولون نين بدو فضانا واقعي والإلهي أجي بدن وبركة كمان لكن بيبدأ ولا البدن ما رجع كنولا دي دقيق أنا نقول مت أهكال ولا المال علم قاس كرور كان علم يراه مالي روك دان هي ما ده وين كرجار على سينكوار ولا المال علم قاس كرور كان علم يراه أنو نولا يتا شريف سيد كيسالة هنو نولا يتا إلهي رحمان هاي هم نو حجاب إلى ما ده حتى ولا دبعته قبني حتى جيك هاو ما دي كي ولا كم كأرنا نام بسيد هاف ولا سيا كأر هاي الحمد لله إسنسين ما هذي أنا إلهي أنك ما هذي أنا حتى ما هتوم هتيه إسنسين كفدان جبر كر عليه نين نمبر إلهي عندي شيء كل جنب هلا سلاد إلهي إنه هو سون كين سلاد ناس دقائق أكبر الله كدك كين كما هاد نقان أنتم أمتى إلهي أونش توالي سناي أذنك كالم نقتي شريف سيدكي ma ahan markii ugu horeysay oo Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Dowladda Federaalka Soomaaliya Xildhibaan Saalax Shariif Siidkay uu deeq sidan oo kale gaarsiiyo qoysas danyar ah soona saameysay colaadda iyo abaaraha. Tan iyo markii abaarta ku dhufatay deegaanada Koonfur Galbeed, wasiirka waxa uu si weyn uga qayb qaatay samata bixinta dadka barakacayaasha ee ku nool Koonfur Galbeed, taasi oo saameysay abaarta iyo sidoo kale colaadaha. wuxuu gaarsiiyay deeqo kala duwan oo raashin ah iyo sidoo kale waxa uu u sameeyay biyo dhaamina. Shukri Ismaaciil Axmed, Telefishinka Caalamiga Universal, Baydhabo.